filimkani waxa uu ka sheekaynayaa dhibaatooyinkii baaxadda weynaa ee ka dhacay dalkaasi Nigeria ee u dhexeeyay muslimiinta iyo Kirishtanka dalkaasi ku wada nool. Dagaaladaasi oo geystay khasaarooyin aan horay loo arag waxaa ku nafwaayay kumanaan kun oo qof oo u dhashay dalkaasi Nigeria. Dagaaladaasi waxaa kaloo ay burbur xooggan u geysteen deegaanada ay ku noolaayeen qoysaska muslimiinta ah iyo kuwa Kirishtanka ee dalkaasi wada degaa oo si weyn ay dagaaladaasi u barakiciyeen iyadoo ay horboodayeen qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha diimaha ee dalkaasi. Iska horimaadyada dhiigga badani ay ku daateen sanadkii 1990-meeyadii ee u dhexeeyay qabaa'ilka iyo kooxaha diimaha ee dalkaasi Nigeria waxaa horboodayay Imaam Mohammed Ashafa oo isagu aaminsan diinta Islaamka iyo baadariga lagu magacaabo James Wuye oo isaguna aaminsan diinta Kirishtanka. Goobaha dadka faraha badani ee dagaaladaasi ku leeday lagu aasayna waxaa ka mid ah xabaalaha Yelwa Shandam. Ashafa iyo Wuye oo iyagu ku qanciyay maleeshiyaadkii kala taabacsanaa in ay dagaalamaan islamarkaana ay difaacaan diimaha ay kala aaminsan yihiin ayaa dagaaladoodii waxa ay ka curteen gobolka Kaduna ee waqooyiga dalka Nigeria. Rabshadahaasi oo kumanaan kun oo qof ay ku dhinteen waxaa kaloo gacantiisa ku waayay James Wuye. Sidoo kalena waxaa dagaalkaasi ku nafwaayay sheekhii Imaam Ashafa kala talin jiray arrimaha diinta Islaamka iyo weliba laba kale oo qaraabadiisa ah. Xilliyadii ay dagaaladani ka dhacayeen dalkaasi waxaa xubnaha beesha caalamku ay ka shaqaynayeen sidii loo hor istaagi lahaa rabshadaha ku salaysan diimaha ee dalkaasi iyo suurtagalnimada in la abuuro jawi ay ku wada noolaan karaan dadka dalkaasi Nigeria oo dagaaladoodu ay salka ku hayeen arrimo la xiriira diinta. Filimkani waxa uu soo bandhigayaa in lagu guuleystay heshiis dhexmaray muslimiinta iyo Kirishtanka dalkaasi Nigeria oo colaadaha iyo dagaalada dhexmaray ay khasaarooyin waaweyn geysteen. Kadib dhibaatooyinkaasi xooggani markii ay galaafteen shacabka dalka Nigeria ayaa hogaamiyeyaasha Islaamka iyo kuwa Kirishtanka waxa ay bilaabeen waan looga dan lahaa in lagu hakiyo rabshadaha xilliga dheer ka dhacayay dalkaasi ee salka ku haya labada diin ee ay kala aaminsanaayeen maleeshiyooyinka dagaalada aan loo aabayeelin ay ku dhex mareen Nigeria. Wadahadalladaasi ayaa noqday kuwo miro dhal ah oo u horseeday Muslimka iyo Kirishtanka Nigeria in ay ka wada hadlaan dagaaladaasi khasaaraha geystay iyo in ay marka dambe ka heshiiyaan, iyadoo dhinaca kalena marka la eego labada dhinac oo kala aaminsan diinta Islaamka iyo Kirishtanku ay isla garteen in loo baahan yahay in lagu wada noolaado nabad iyo dib u heshiisiin. Baadariga James Wuye oo isagu hogaaminayay kooxihii u dagaalamayay diinta Kirishtanka iyo Imaam Mohammed Ashafa ayaa go'aansaday in ay socdaallo ku maraan xaafado iyo magaalooyin ay ka dhaceen dagaallo lagu rogmaday si ay u gudbiyaan fariin hadafka laga leeyahay ay tahay in la iska cafiyo lana iloobo wixii xumaan ahaa ee dhex maray muslimiinta iyo Kirishtanka Nigeria iyo in dadka dalkaasi ay ka shaqeeyaan in lagu wada noolaado nabad iyo isjacayl. Honorable Chief Joshua Darie has instructed me to tell the Yelwa community to read their letter of apology on behalf of everybody. Labada hogaamiye ayaa fagaarayaal ay isugu yimaadeen shacabka Nigeria ka sheegay sida ay ugu khaldan yihiin in ay huriyaan dagaalada galaaftay dad iyaguba markii hore danyar ahaa, waxaana ay weydiisteen cafis dadkii ay dagaalada ku qalqaaliyeen islamarkaana waxa ay booqdeen goobo ay ka mid yihiin qubuuraha caanka ee Yelwa Shandam. Waxaana ay suurto geliyeen in banaanbaxyo waaweyn oo ugu dambeyntii lagu taageerayay heshiiskii ay inta badan saxiixeen wakiiladii ka socday labada dhinac. Heshiiskaasi ayaa markii uu dhacay Muslimka iyo Kirishtanka dalkaasi waxa ay isugu soo baxeen wadooyinka dalkaasi iyagoo aad u faraxsan islamarkaana gacmaha is haysta oo ciyaaraya oo ku faraxsan dhinaca kale heshiiska taariikhiga ah ee dhex maray labada dhinac.
dadkaasi ayaa qaarkood waxa ay ka sheekaynayeen sida ay uga xun yihiin qaraabadoodii oo dagaaladaasi qaarkood lagu dilay. waxaa ku dhintay dagaalka aabbahay iyo walaalkay iyo walaashay. hadda waxaan la noolahay qaraabadayda. waxaan aad ugu faraxsanahay siday dadku isugu wada yimaadeen. muslimka iyo kiristankuba waa inay fikradaha wanaagsan isla wadaagaan. dadku way wada ciyaarayaan. kulligeen waxaan nahay mid farqudha oo keliya. labada hogaamiye waxa ay mas'uul ka yihiin xilligan xarunta dhexdhexaadinta muslimka iyo kiristanka ee ku taala dalka Nigeria. dhanka kalena waxa ay horbooday imaamka iyo baadariga waxa ay ka sheekaynayaan sida ay u xaqiijiyeen isbeddelka taariikhiga ah, waxaana ay ku qeexayaan filimkan dadaaladii ay u galeen iscafin dhex marta labada dhinac iyo cilmi baaristii la xiriirtay sida lagu dhisi karo dib u heshiisiin iyo nabad waarta oo u dhaxaysa jaaliyadahaasi ay colaaduhu ku dhufteen. waxaan ku dhaqmaa diintayda anigoo qiiraysan, isaguna waa sidaa oo kale. arrintaas iyadoo ay jirto ayaa haddana waxaanu nahay dad isku xiran oo wada nool. haa, kiristanka iyo islaamku waa ay jirayaan iyagoo isla nool. arrimahani oo jira ayaa haddana dadku waxa ay gelayaan jannada sida ay rajaynayaan. waa arrin run ah. inkastoo aan ku kala duwannahay arrimaha diinta qaarkood, waxaan ka dhigaynaa caalamka meel lagu nabad galo. waxaan ahay wadaad muslim ah. waxaan hogaamiyaa kumanaan aan isku ujeedanahay. weligay kuma gorgortamin mabaadi'da islaamka. hase yeeshee islaamku waxa uu na farayaa in aan dadyowga kale u abuurno jawi ay ku noolaadaan. wada noolaanshaheennu waa tusaale.